iyadoo qof kasta oo muslim ah uu garan karo faa'iidada uu leeyahay geela iyo cajaa'ibta sida uu ilaahay subxaana watacaala u abuuray, ayaa caanaha geela waxay leeyihiin waxtar aad u badan. Caanaha geela waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo caafimaad oo ay ka mid yihiin difaaca jirka oo la xoojiyo. Waxay hodan ku yihiin lactoferrin iyo immunoglobulins oo ka caawiya jirka inuu la dagaallamo cudurrada. Faa'iidooyinka ay leeyihiin caanaha geela waxaa ka mid ah waxa ay dabcan hoos u dhigaan sokorta dhiigga ku jirta maadaama ay leeyihiin insulin-like proteins. Sidaa daraaddeed waxay waxtar u leeyihiin dadka qaba ama la dhiban xanuunka diabetes. Caanaha geela waxaa hodan ku ah oo dabcan ku badan calciumta oo ah macdan muhiim ah oo jirka ka caawisa inay xoojinta lafaha, ilkaha, xinjirowga dhiigga, kontaroolka hormoonnada iyo cadaadiska dhiigga, shaqada murqaha iyo nerveska. Waxaa kaloo caanaha geela ku jira ironta, magnesiumta iyo zingiga. Caanaha geela waxay u fiican yihiin ama ay ka qayb qaataan hagaajinta dheefshiidka. Waxaa ku jira probiotics taasoo caawinaysa dheefshiidka inuu fiicnaado. Sidoo kale waxaa laleeyahay cilmibaarisyo ayaa sheegaya in caanaha geela ay ku jiraan antioxidants islamarkaana ay muhiim u yihiin ama ay caawinayaan korriinka maskaxda. Waxaana laga yaabaa laleeyahay inay faa'iido u leeyihiin autismka iyo alzheimers. Sidoo kale caanaha geela waxyaabaha laga sameeyo oo shirkadaha ay ka sameeyaan waxaa ka mid ah caanaha geela saabuunta laga sameeyo caanaha geela waxay u fiican tahay dadka qaba xasaasiyadda maqaarka. Sidoo kale kareemka caanaha geela waxay leeyihiin nafaqooyin aad u fiican oo ku wanaagsan nooleynta iyo qurxinta maqaarka. Nafaqooyinka ayaa sidoo kale maqaarka ilaaliyaan dhaawacyada kaga yimaada cimilada. Kareemada laga sameeyo waxaa ka mid ah kuwa ka hortaga gabowga maqaarka. Sidoo kale waxaa laga sameeyaa rooseetada nooca midab la'aanta ee loo yaqaano lip balm. Caanaha geela waxaa laga sameeyaa rooseeto daaweynaysa qaleylka bishimaha. Waxaa laga sameeyaa caanaha geela oo laga dhigay budo sida caano booraha oo kale. Waxaana la mariyaa farsamooyin soo saara rooseetada bishimaha qoysa oo ka ilaalisa qaleylka iyo jajabka. Farmaajaha oo dabcan caan ah ayaa sidoo kale laga sameeyaa caanaha geela oo shirkado dhowr ah ayaa waxay sameeyaan farmaajo laga sameeyo caanaha geela oo tayadeedu aad u sarreyso. Muhiimadda ay caanaha geela leeyihiin dabcan maaha waxa lagu soo koobi karo hal iyo laba. Waxaana idinkula talinayaa inaad isticmaashaan caanaha geela xaddi idinku filan maadaama jirkeenu aad ugu baahan yahay.